waxay ahayd madal ballaadhan oo si heersaraa loo soo agaasimay taasi oo lagu shaacinayay 4 musharax oo u taagan jagada doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer iyo degmada Burco. Musharaxiinta munaasabadaasi lagu soo bandhigay oo kala ahaa Cabdi Salebaan Jaamac Bade, Yuusuf Ismaaciil Warsame iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo waliba Faysal Maxamed Faarax Laqana ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah UCID Injineer Faysal Cali Waraabe, mas'uuliyiin cuqaal waxgarad dhalinyaro haween kuwaasi oo dhammaantood taageerayaal u ahaa 4 musharax ee isku raaceen beelaha deegaanada ay ka soo jeedaan. waxa munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beelaha soo xulay musharaxiintaasi iyo marti sharaf kale kuwaasi oo bogaadiyay 4 musharax isla markaasina ku tilmaamay kuwa ka soo bixi kara mas'uuliyadda ay u istaageen. munaasabad aynu ku soo xulay labeentii iyo aqoon-yahankii maanta ma noqon doonaan xildhibaanada aanu soo xullay kuwa Hargeysa fadhiista ee waxay noqon doonaan kuwa inala qaybsada dhibka iyo waxtarka iyo horumarka hadda soo kordha. waa afar aqoon-yahan aad baan inamada u aqaanaa, afar aqoon-yahan weeye. xusbiga wax waliba waxay leeyihiin hooyo aabe. Somaliland xusbiga maanta u hooyadii aabbaaba ahi waa UCID. war wixii idinka xumaan jiray baa dadka ka xun markaa xildhibaanan noqotaan. waa garanaysaan maanta idinkoo baahihiiba ogeydeen ha loo adeego dalka iyo dadkaba. ku boorinaya musharaxiinta maanta jooga haddii la ka dhigo inay guulaystaan kana dhiidhiyaan arrintaa inta badan soo jirtay oo systemka ay wax ka beddelaan. tartanka iyo kambeynku markuu bilaabmana waxaanu noqon doonaa kuwa soo baxe ugu faraha badan, kuwa codaya ugu faraha badan, kuwa suga xildhibaanada ay dooranayaan. ilaahay had ku guuleeyo oo ha ka noqdeen kuwa muraayad ka noqda xilalka ay lagu soo dooranay. xusbiga iyo inamadaba waxa weeye kor ha loo soo qaado. beelweynta daahir faarax iyo gaashaanbuurteeda haddaanu nahay waxaan si mugleeya miisaan leh u soo dooranay 4 musharax ee halka ku qoran. gudoomiye si waa naga gudoomaysaa 4 musharax waa naga gudoomaysaa. waa 4 aanu isku raacnay, 4 aanu soo xulanay weeye, 4 aanu ka midaysannahay dhammaan weeye. la soo xulay dhul badan baa laga maqli doonaa musharaxiin weeyaan. nimankaa waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha ku guuleeyo. waa 4 xildhibaan codkoodii way sitaan, saayidna way hayaan. xusbigaan beelaha xusbiga ku deeqa codkaan noqon doonaa saayidka ku yaqaan. 4 nin ee la soo xulay ee maanta taagan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay ku guulaystaan. 4 musharax waa soo xusheen, waa soo sharafteen, madashii baa keenteen. haddaa codka siisaan wey dee tolkiin soo shaacay haddii eeba guuro yahay idinkana waa idiin sharaf, tolkana waa u sharaf. waxaan leeyahay ilaahay xilkaa laydii soo saaray ha idinku guuleeyo. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya musharaxiinta aan ogahay inay noqon doonaan niman hogaamiye dalka si fiican hogaamin doona. qaarka laf ku soo socdaan waxaad dareemaysaa in burco xusbiga ay maanta taageersan tahay oo ay xusbiga tahay baad dareemaysaa. wuxuuday guulayso golayaasha ugu horee adaa xisbiyada dhammaan xakinkooda noqon. halkan isugu timi oo ay keeneen 4 musharax annana waa hambalyaynaynaa. aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. mar haddii laandheeri kugu soo biiray maanta xusbigaagii uu ku biirayna waxaan u malaynayaa hadduunbaa xusbigii shuushku ka kacayaayo dib dambe loo odhan maayo Faysal number 3 buu ku jiraa. aynu dooranaynaa inamadani waa inay noqotaa dadkani dadka adharkooda u diyaara. laakiin difaaceeda anaga haynay, annagaa bilownay, geedkaanu beeraa ma qalalo. geesta kale musharaxiinta la soo xulay oo munaasabada ka hadlay waxay si qoto dheer uga warrameen qorshayaasha iyo waxyaabaha ay rabaan inay wax ka qabtaan haddii ay ku guuleystaan doorashooyinka isbarkaneed. waxaanu ku rajab qabnaa inaad insha Allah aad codkiina si dhaba noo siisaan oo sida maanta u soo baxdeen muuqataan insha Allah aad muuqataan. mahadnaq xagga beelaha daahir faarax iyo gaashaanbuurtiisa oo na soo xushay iyo taageerayaashan reeraha kale gobolka soo jeeda. aanu kollay inaan
hormood ka noqon doono waxyaalo badan oo dadku tegayo oo ugu horeeyo dan yarta oo dhalinyarada shaqo loo abuuro waxaa jira ilaa 30 wasaaradood wax ka badan baynu leenahay waxba Hargeysay fadhiyaan aqli maaha in gobolada kale lagu shaqo laado marka waxaan ku ballan qaadaynaa wasaaradaha in gobolada kale qaar loo soo raro oo burco waliba caasimadda labaad kuwa waaweyn la keeno aad iyo aad idinka mahad celinaynaa waqtigiina aadna siiseen ee ilaa iyo maanta aad dantiinna gaarka ah haddii ay hablaha tahay hadday cuqaasha tahay aad noo hurteen ee ilaa iyo maanta aad noo fadhideen aad baan idinka mahad celinaynaa markaa isbeddel baynu u baahannahay aniga waxay igu kalifay golaha deegaanka markaan arkay ciyaalka gobollada Somaliland oo dhagxaan guudkeed ku ciyaaraysa kubadda shaqo tagiga ma aha laakiin waxaan isleeyahay aqoon aan baranayo waliba heer jaamacadeed 12 sano oo arday aan wax ku baro iyo mid aan dan guud kaga shaqeeyo mooyaane aan weligay intaan ku shaqo tagay bil mushaar ku qaadan ayaan isleeyahay xariga kaga jaro degmadaada iyo dadkaaga ugu shaqee si aad halkaa uga sii darado ilaahay idinkii shaqo tagiga ma aha min mushaar u baahan walaahi ma yihi iyo cadaaladda sidaa markay tahay ee maanta aad ku doorataan musharixiintiinii ee aad ku soo baxdaan ee aad ku najaxdaan ha noqonina dadkii martida ahaa ee weelkii wax lagu sideeyey daldalooliyey bilaahi calaykum doorashada 2022 markuu gudoomiyuhu soo taago sidaa imika ugu soo ururteen ugu codeeyo oo soo saara ugu dambeyntii xogayaha duulista ee xisbiga u ciiday Bashiir Xamari ayaa bogaadiyay 40 musharax waxaana uu madasha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga u ciiday Injineer Faysal Cali Waraabe kaasi oo sheegay in xisbiga u ciiday si rasmi ah u qaatay 40 musharax tanka loo raaciyo in maalinka codka aynu si wanaagsan ugu codeyno yaan la isdhiganin waxaan idin sheegaynaa inaanu xisbi ahaan idinka aqbalnay inaanu insha allahu tacaala aan sharaxno 40 musharax waadka aqbal waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inayna soo baxaan oo noqdaan qaar dalkooda iyo diintooda u hiiliyaan noqon inaa ka barayso ee soo soocay dhalinyaro saqafiina oo iimaan leh oo gulmada waa gulmad maxamed mataan gabalaax maxamed mooto sahan TV burco